nimanka la yiraahdo anigu wada haybtooda ma garanayo shabaab nimanka la baxay xaqiiqa aadami wax kasta ku dirirsan muu jiro dadka muslimiinta iyo dadka gaalada ah ama bible-ka haysta wax ka dhaxeeya jiro maxay yihiin bini aadanimada ayaa ka dhaxaysa shabaab bini aadanimo ma ogola oo muslimnimo ma ogola oo Allahi abuuray been ka sheegayaan been nimanka magaca la baxay marka oo arrimahan ka soo sheekay ku sifroobay ayaa waxay Soomaaliya dhibaato badan ku hayay waxaan dagaal uga qaadnay degmada Matabaan waxaan ka sifeynay dhammaan degmada Matabaan waxaanu ka sifeynay marka laga reebo dhinaca geeska koonfur baryaada ama koonfur baleeyra moqokori degmada Maxaas ayaanan tigin maanan tigin halkaas oo qurahanaan tigin degmada Beledweyne inteeda badan iyo degmada Maxaaseed iyo degmada Matabaan intaas ayaa howlgalku ka dhacay waana ka sifeynay waa niman fuliyiina xeel dagaal oo aan qarax ahayn ma yaqaanaan waxaan soo xaqiijiyay inay fulayeen waxaan soo xaqiijiyay qorshe dagaal inaysan aqoon balaakiin qarax uuna yaqaanaan arintaas marka howlgalkii aan ku maqnay labada bilood iyo dheeraadka habeenno laba bil iyo habeenna ku maqnaa hal waqti xabadan isaga hor nimaado oo ayna hakiyeen ma jirin howlgaladaasni guulo badan laga gaaray wax badan laga faa'iiday cilmi badan xataa ka soo baranay nimanka fulanimadooda iyo wax taryaridooda sidaan u maanaan ogeyn waxaan xaqiijiyay dadka Soomaaliyeed oo cadeynaya wax aan qarax ahayn oo shabaab ku wajihi karo dhumuc dagaal inaysan jirin taas marka inta uga imaado howlgaladii faa'iidooyinka noocaas ayaa laga helay waxaanu ka soo saarnay deegaamadaas ay ku dulmanayeen ummadda Soomaaliyeed waxay sameeyeen markii cararayeen bal inaysan aadinimo iyo islaamnimo iyo wax ay shirka lagu noqon kara aysan jirin baan ku sheegay markii cararayeen waxay ka gubeen dadka caashi waxay gubeen Bukurre oo magaaladiina gubeen ceelkiina gubeen waxay gubeen Inabaal waxay gubeen Teedaan waxay gubeen Goobo waxyaabaha ay ugu darnaa waxa kamid ah gabar baa waxay tiriyeen ina adeero aan la baxo kiilada sokor caruurta u karsado aan meesha kala baxo wuxuu gabadhi kala tuurayso kiiladiina uga riday meesha walaha eeg yani qof aadamiya oo adduunyo rajo ka qaba oo aakhiro rajo ka qaba oo waxa sameyn kariya ma jiro aqligoodu wuxuu ka sii xaq jiraa kan xoolo ku nool yihiin xayawaanku ku nool yahay oo ka sii xaq jiraa waxaan cadayn oo aan la garanayn waxa ay sameynayaan waxay ku raadinayaan xitaa ma cadda ee dadka la yaan basi rabaan xukun ma rabaan meel u socdaan lama yaqaanaan waxay doonayaan lama yaqaan islaan maaha gaal maaha diin iyo haystaan lama yaqaan dadka inay laayaan u baa ilaahay ayay ku joogaan kuwa marka waqti dhow hadii Allah idmo phase 1 ayaanu galnay waajibaadkeedii phase 2 waa inoo dhimayahay waan gali doonaa waxa mudan in loo mahad celiyo aad u mudan ciidanka Soomaaliya qaasatan ciidanka xoogga dalka
ciidamada booliiska ee aniga ila howlgaliya ila socday waxaa in si gaara loo xuso mudan ciidanka la yiraahdo dib u xoreynta deegaanka awalna la dhihi jiray macawisleyda oo aan dhihi karo waa naftu horeyaal bal laakiin aad moodo roolkii dawladdu inuu ka maqayaa meeshaas oo imkaaniyaadkii ay u baahnaan dagaalka ay ku gali lahaayeen aad moodo inuu ka kala maqan yahay mar labaad iyo mar saddexaad ciidamada qaranka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeeyo iyo ciidanka dib u xoreynta deegaanka intaba waa u mahadcelinayaa fariinta aan u dirayaa waxay tahay wiil yar baa maalin wuxuu yiri wiilka daadiisii eraga xigmadiisa waan la yaabay wuxuu yiri adeeru shabaab cid looga dacwado ma leh haddaad dishan cid ku qabsanaysaa ma jirto maxaan ka dhowranaynaa haddaan cid lagu ashtakiyaaba jirin haddaad dishan aan cid ku haysan dee aan kala baxno macnaha waxaan ka dhowranaaba ma jiraan waxaan leeyahay wariyaal shabaab waa gabal dhacay filsafad baa leedinku haystaa filsafad midowga Soofiyet soo ma burburin wallaahi billaahi tallaahi wa aniga diidartay shabaab waa burbur qofkii dulinimo ku noolaan lahaa iyo qofkii xorriyad ku noolaan lahaayo shabaab waa burburay ana idin sheegay waa burburay shabaab waa tagay qof walba markaa يعني هكا عررين waxadan hubin waxadan hooskaaga ka carar hadaa istiraado cadceeda markaa istaagto hoos baa ka baxaya Soomaa oo hadba cadceedu dhinac ka marayso hadaa hooskaaga ka cararto soo mushkilad ma shabaab waa adoo hooskaaga ka cararayno isku dayo u baahan yahay annana wadi ku hogaaminayna inuu jabay waxay cadaynaysaa waxaan soo howlgalnay 8 bish أنا كسر أنا متبان طبعا عشان سدح الدقيقة كحورين إني فليين سويدي ما عدا وحكى الله علامات وإني فليين جددي قدرني جددي كتير رفيس معايا قد دوش لقى سارية بحال وقشر دوش كسارية ولقوله من يوا وهذا رمحوله من يغري وسقاطه شوف لما fariintan uu diray waxay tahay dadka Soomaaliyeed wariyaaya diintana waa taqaanaan adduunkana maxay haystii geeridu waqtiga qaar ka wanaagsan nolosha war damiirkiinu qofku sharaf la'aan ma noolaan karo adinkoo ilaalinay diintiina diinta muslimka ilaalinaya ee aad haysataan مبادئ أقول قنتان دينتنا إن هذا إلى لسان وودنكين إلى شتان وشرفكين إلى شتان ومالكين إلى شتان وقبلها عاد الشين إن جفور كحرية هي إذن هيبتي سأقول وإنه مسلم هي إنه قال هي إذن كلا أقول وإسكاك حيسني وأن حتى لقوي ديني وأبيوسك كجرو وأنت أبيوسك نوران الله يدين ودلنا ما كنا نوران الله يدين إسكا كرقة هذا واحد